xogayaha arrimaha gudaha ee xisbiga mucaaradka ee waddan oo maanta qaybo ka mid ah warfideenka kula hadlay magaalada Hargeysa waxa uu hambaliyay bogaadin dheeraad oo diray ciidamada qaranka Soomaaliland kuwaasi oo baryihii u dambeeyay ku hawlanaa sugitaanka amniga isagoo dhanka kalena fariin u diray shacabka ku dhaqan gudaha Soomaaliland in ay kala qayb qaataan sugitaanka amniga waxay ciidamada kala duwan ee qaranku ay ku jireen sugidda amniga jamhuuriyadda Soomaaliland guud ahaanba waxaanu maanta runtii bogaadinaynaa halkan hambaliyo weyn uga direynaa runtii guud ahaanba ciidanka amniga inoo sugaya aan ku naaloono aan ku seexano runtii waxa ciidankaas ku shaqeynayaan duruuf adag oo bacad leh oo roob leh oo wax walba leh waxaan xisbi ahaan maanta aanu garab taaganahay ciidanka kala duwan ee hawlgallada ku jira runtii asadka quraatay jamhuuriyadda Soomaaliland leedahay waxa weeyaan nabadgelyada waxaan kaga duwanahay geeska aan ku noolnahay ee laynoo soo majeertaa ee aan ku noolaana waa nabadgelyada ka ogolaan mayno runtii inay ciidina inaga khalkhal geliso nabadgelyadeena waxaan hawsha dhabarka u ritay oo mas'uuliyadda runtii xil weyn iska saaray oo bulshada Soomaaliland oo dhan ay ku saaxatay waxa weeye waa ragga hay'adka ay dhalinyarta ee amnigeena sugaya guud ahaan waxaan bulshada Soomaaliland ugu baaqanaa in qarannimadeenu ay muqaddas tahay in ammaankeenu ay yahay lama taabtaan inaan cidna u daba fadhiisan karin waxaan shacbi weynaha jamhuuriyadda Soomaaliland meel kastoo joogaan ugu baaqanaa in ay gacan siiyaan ciidamada ammaanka oo ay u fududeeyaan wax kasta oo kaga xidhma oo ay soo sheegaan wax kasta oo ku soo kordha oo ay gacan qabtaan xisbi ahaan waxaan runtii garab taaganahay ciidamada kala duwan ee qaranka waan u hambalyeynaa waan bogaadinaynaa marka astaamaha qaranka iyo nabadgelyada guud ahaaneed mucaarid iyo muxaafid lama kala laha haddii aanu nahay mucaaridka markay qaranka gaadho cid nooga horreynaysaa ma jirto gacanta ugu weyn ee laga qayb qaadanaya sugidda amnigana runtii diyaar baan u nahay waxaan bogaadinaynaa taliyayaasha gobollada awdal iyo togdheer oo ka hadlayay shaqooyinkii weynaa qabteen taliyaha guud ee ciidamada booliska isaguna oo soo saaray bartiisa facebookna ku soo qoray maqaal guubaaba runtii sheegana in ciidamada shaqadoodii caadiga ay haystaan waxaan leenahay mas'uuliyad baa saaran annaguna garabkiina aanu taaganahay dhaxanta iyo dhibaatada ku shaqeynaysaana waanu idila dareemanaa dhammaan mas'uuliyiinta qaranka wixii imkaaniyaada ay ciidamadaas uga baahan yihiin duruufta adaga noocaas ku shaqeynaya waxaan u baahnay iyaguna inay fududeeyaan xamse dabaare RTN TV Hargeysa